السلام عليكم qarniyo badan waxaa soo jireen ahaa marka uu qof dambi geysto in ummad waliba ay diinteeda iyo dhaqankeeda waafajin jirtay ilaa maantana ay waafajiso dhaqamadaas waxaa ka mid ah in qofka dambiilaha ah la musaafuriyo ama la daldalo ama lagu rido xukun xabsi kala duwan ah sida bilo kooban ama sanado kooban ama xitaa xabsi daa'in ah mar waliba oo ay nolosha aadanaha sii horumarto waxaa sii hormarayay hababka kala duwan ee ummad waliba ula dhaqmaysay maxaabiista ku eedeysan dambiyada kala duwan waxaa jiro xabsiyo raaxo ah kama hadlayno kuwaas maanta ee iyadoo siyaabo kala duwan lagu qiimeynayo haddaba waa kuwa 10 xabsi ee dunida ugu xun xilligan xabsiga Guantanamo Bay xabsigan ku yaala geeska bari ee wadanka Cuba waxa iska leh Mareykanka waxa la furay sanadkii 2002 kadib weeraradii 11 Sebtembar 2001 si loogu xiro dadkii ku lug lahaa weeraradaas walibana meel ka baxsan dhulka Mareykanka walow uu madaxweynihii Mareykanka Barack Obama ku soo galay ololihiisii doorashada inuu xirayo xabsigan haddana wali wuu shaqeynayaa walibana waa hooyga maxaabiis badan oo dunida daafaheeda kala duwan laga keenay ha ahaadaan kuwa laga keenay Taliban Afghanistan iyo waliba al-Qaacida Pakistan inkastoo aysan badnayn waxaa jiray maxaabiis Soomaali ah oo lagu xiray xabsigan waxaa ku xiran 150 qof oo kaliya labadiisa kaam ee kala Camp Delta iyo Camp Iguana walow uu jiray Camp X-ray kaasoo u gaar ahaa su'aal weydiinta maxaabiista yani ciqaabistooda iyadoo la adeegsanayo habab kala duwan sida garaacista maxaabiista koronto lagu qabanayo iyo xitaa in dharka laga dhigo laguna ciqaabo heer kul aad u hooseeyo ama aad u sareeyo xabsigan ugu da'da weyn gobolka California ee la dhisay 1885 waxa uu caan ku yahay gaboodfalada ka dhaca gudaha xabsigan waxa uu hoy u yahay qayb kamid ah dambiilayaal caan ah sida Charles Manson, Scott Peterson iyo waliba Sirhan oo ahaa ninkii khaarijiyay Robert F Kennedy oo ahaa John F Kennedy walaalkiis xabsigan waa mid kamid ah xabsiyada ugu ballaaran ee lagu xiro dadka dilka toogashada ku xukuman waana xabsiga kaliya ee gobolka California ku yaalo lagu fuliyo dilka iyadoo la adeegsanayo gas inuu kaalinta sagaalaad ku jiro wax la yaabo maahan Terre Haute Mareykanka xabsigan ku yaala gobolka Indiana oo ka kooban 3 qaybood oo kala ah qayb aad loo adkeeyay waardiyaheeda qayb waardiyaheeda dhexdhexaad yahay iyo waliba qayb waardiyaheeda hooseeyo waxa lagu naanaysaa Guantanamo waqooyi xabsigan wuxuu leeyahay isna sariirta lagu fuliyo dilka xabsigan wuxuu leeyahay qayb u gaar ah dadka lagu xukumo dilka toogashada ah oo qolal aad u yar ah ayagoona toddobaadkii 3 jeer oo kaliya loo ogol yahay inay banaanka u soo baxaan qaybta gaarka ah waa qaybta ay Dasokharta Tsarnaev oo ah ninkii ka dambeeyay weerarkii orodada Boston ku xirnaan doonaan ilaa lagu fulinayo dilka marba haddii laga hadlayo xabsi waliba kuwa ugu xumaa waa qasab in la soo qaado ugu yaraan koonfurta Ameerika waa tahay xabsigan ay buux dhaafiyeen maxaabiista gaaraysa 3700 waxa loo naqshadeeyay 700 oo qof kaliya in lagu xiro tirabadidaas waxa sababtay inay xabsiga ku dhex faafaan cudurro iyo waliba maxaabiista dhexdooda tacadiyo isugu geystaan xabsigan waxa ka jiro musuqmaasuq taasoo sababtay inay mudnaan gaar ah yeeshaan kuwa lacagta ama awoodda leh oo ay sariiro ku seexdaan halka maxaabiista kale ay kartoona ku xabsigan ma lahan wax dhaqdhaqaaq ah oo looma ogola maxaabiista inay qolkooda ka soo baxaan walibana ma lahan wax adeeg caafimaad ah taasoo sababtay inay maxaabiista qaar jir iyo maskax ahaanba u dhintaan xabsiga Diyarbakir oo ku yaala Turkiga ma aadan filanin waan ogahay in xabsi Turkiga ku yaalo kaalinta lixaad kaga jiro xabsiyada ugu xun adduunka si kastaba xabsigan siday sheegeen waa mid kamid ah xabsiyada tacadiyada aadanaha ka dhanka ah ugu badan loogu geysto maxaabiista ay ka dhacaan maxaabiista waxa loo ciqaabaa qaab jir ahaan iyo maskax ahaaneed heer ay iyaga isdilaan waliba ehelada maxaabiista marka ay xabsiga booqdaan haddii ay ka hadlaan dhibka loo geysto maxaabiista waxa maxaabiista loogu daraa ciqaab kale sidaas darteed reeraha maxaabiistooda ku xiran yihiin xabsigan afkooda u xiran xabsigan waxa loo dhisay in 700 oo qof oo rag iyo dumarba leh si kala qaybsan loogu xiro
xabsiga Mendoza Argentina xabsigan ku yaala wadanka Argentina ee koonfurta America waxa ku jira 3 jibaar dadkii loogu talagalay in lagu xiro halka 5 qof oo kasta lagu xiro qol 4 talaabo ah xabsigan maadaama uusan lahayn suuli hagaagsan maxaabiista waxa lagu qasbaa inay isticmaalaan caagado iyo baco si ay u xaajo gutaan sidoo kalena xabsigan maba lahan wax adeeg caafimaad ah maxaabiista waxay dhakhtar la kulmaan kaliya marka ay geeriyoodaan kadib xabsiga Rikers Island Mareykanka xabsigan ka kooban 10 gaalshire ee kala qaybsan waxa uu hooy u yahay rag dumar iyo waliba da'yar wuxuuna caan ku yahay gabood fallada xaddaafka ah musuqmaasuqa iyo waliba habdhaqanka foosha xun ee iskula dhaqmaan maxaabiista dhexdooda waliba si gaar ah dadka aan maskax ahaan dhameystirneen 2008 waxa ku dhex geeriyooday xabsigaas Christopher Robinson oo ahaa 18 jir kaasoo baaritaan kadib la ogaaday inuu u dhintay jirdil ay maxaabiista u geysteen xabsigan waa xabsiga ugu weyn ee leh qolal sida gaarka ah loogu xiro maxaabiista xabsiga Admax Florence xabsigan waa xabsiga ugu waardiyaha adag ariga Mareykanka waxa la dhisay xabsigan 1994 waxa uuna hooy u yahay siday sheegeen rag kamid ah kuwa ugu khatarsan dunida sida Ted Kaczynski oo lagu naanayso The Unarmed Bomber Ramzi Youssef oo loo haystay mas'uuliyadda weeraradii xarunta ganacsiga adduunka World Trade Center 1993 iyo waliba Zakaria Musa oo isna ku eedeysan weeraradii 11 September 2001 maxaabiista xabsigan waxa ay 23 saacadood maalin kasta ku qaataan qol hal talaabo ilaa 4 talaabo ah waana kan aad aragtaan waliba qolalkan daaqadoodu aad bay u yaryar yihiin marka ay banaanka uga soo baxayaan maxaabiista qolalkooda waxa lagu xirxiraa silsilado waaweyn waxa la socda waardiyayaal badan Robert Hood oo taliye ka ahaa xabsigan xilli hore wuxuu ku tilmaamay inuu xabsigan yahay qayb nadiif ah oo ka tirsan jaxiimo oo uu ka wado waa cadaab nadiif ah waxaan soo gaarnay gabagabadii haddaba waa qasab markan inaan meel aad u fog aadno Mareykanka waan ku daalnay xabsiga Cam 22 ee waqooyiga Kuuriya xabsigan ku yaala wadanka ay adag tahay in xog laga helo wuxuu shaqeynayay ka soo bilow 1965 ilaa iyo maanta gu'yaal badan oo uu qarsoodi ahaa ugu dambeyn sawiradii qaabka satellite-ka ahayd looga qaaday ayaa banaanka keentay waxaana la aaminsan yahay Cam 22 inuu yahay mid kamid ah 30 xabsi oo ku yaala waqooyiga Kuuriya sida la sheegay xabsiyadan waxa ku xiran 50,000 oo qof oo ka kooban rag dumar iyo waliba caruur sidoo kale reero dhan oo dhameystiran ayaa lagu xiraa xabsiyadan maxaabiista waa la jir dilaa lana ciqaabaa 12 saacadood maalin kasta ayaana lagu falaa beero waxa ay ka shaqeeyaan dhagax jabin toddobaadka dhanna waa lagu shaqeeyaa ugu dambeyn waxa noo haray kaliya hal xabsi waxaana isweydiinaysaa dhowr qaaradood ayaan booqanay markaan anigaba lafteyda filanmaynin balse ila arag iyaa kaalinta koowaad uga jira 10 xabsi ee adduunka ugu xun xabsiga Gitarama ee Rwanda soo la yaab kulama ahan in Rwanda ay kaalinta koowaad ku jirto anigaba xabsigan uma qalmo kaalinta koowaad ayaan isleeyahay balse ha degdegin xabsigan ku yaalo Rwanda waxa ku xiran 7,000 oo maxbuus waxa loo dhisay in 400 oo maxbuus kaliya lagu xiro maxaabiista xabsigan ku xiran inta ugu badan waa kuwa ku eedeysan gumaadkii ka dhacay Rwanda 1994 oo ay isu geysteen qabiiladii Tutsi iyo Hutu maxaabiistan oo isugu jira rag iyo dumarba waxa lagu qasbaa ayagoo cagacad kaba la'aan ah inay taagnaadaan shamiitada sibirka xabsiga taasoo sababta inay cagaha ka bararaan ama xitaa siyaabo kala duwan u xanuunsadaan maxaabiistan dhakhtar joogto ah ma helaan sidoo kalena ma helaan gargaar caafimaad oo baahi tiri kara sidaas darteed xabsigaas maalin kasta isku celcelis ahaan waxa ku dhinta 5 ilaa 9 qofood dhammaan xabsiyadaas aan soo sheegnay iyo kuwa ka xunba dunida way ku yaalaan ilaahayga xor naga dhigay ayaa mahadsan sidoo kale ilaahayna waxaan uga baryeynaa kuwa cadaalad darrada iyo dulmiga ugu xiran xabsiyada guud iyo kuwa qarsoodiga ahba inuu ilaahay reerahooda u soo celiyo adigana war hooy dambi gaal shira aad ku muteysan karto iska ilaali waadna ku mahadsan tahay inaad intaan ila soo gaartay nabadgelyo